Ciwaanka afraad wuxuu leeyahay arooskii Faarax iyo urugadii Cabdi. Faarax isla habeenkaa markuu Cabdi ka tegayba wuxuu moobilka ka wacay Canab. Markuu cabbaar waano canaan iyo ammaan isu daba dhigayna wuxuu daaha uga fayday rabitaankiisii ku aadanaa inuu guursado. Markay damacdo inay u jawaabtaba wuxuu kala hortagaa erayo uu ku durayo Cabdi iyo Xuseen. Wuxuu ku canaantay inay qiimaheeda meel kaga dhacday, sida keliya ay ragga uga aarsan kartaana ay tahay inay hadalkiisa maqasho, codsigiisana ajiibto. Mar uu dhagaheeda hantay, qalbigeedana in yar u jiro, ayaa lambarkii waalidku soo wacay Canab. Waxa uu u sheegay inay bariis arkaan, isla markaana wax isla meel dhigan, caawana sidaa isku macaan salaamayaan. Markay hawraarsan tirina intuu moobilkii dhigay ayay dhoosha ka qoslay. Goor ay barqo dheer tahay ayuu ninkii Faarax ahaa isku soo taagay macaawis, shaadh iyo kabo cusub. Baakoorad aabbihii lahana horey soo qaatay. Waxaa intaa u dheerayd go' shaadh ah, ninkii xidhaana marka meel fog laga soo arko loo malaynayo garaadkii beesha oo tamashlayn u soo baxay. Canab oo ay saaka ku ballameen goob aan guriga ka fogeyn ayuu u socdaa, iyadoo dhulka xariiqaysa, geed qurac ahna fadhida, lagana dareemayo welwel iyo culays ugub ah ayuu la soo joogsaday. Nabdaadin iyo waraysi gaaban kadib wuxuu ooda kaga soo qaaday run iyo beenba wuxuu u soo diyaarsaday inuu Canab ku hanto. Si uu yeelayba wuxuu ku qanciyey inuu guursado oo ay weliba isla caawa israacaan. Wuxuu kaloo u sheegay inuu wax walba diyaariyey, gaadhigii ay ku safri lahaayeen, xaafaddii ay ku degi lahaayeen iyo wixii la mid ah. Canab waxay soo jeedintaa u aragtay kansho ay tahay inaysan dayicin. Waa hagaag Faarax, anigu diyaar baan ahay, adigan kaa warsugo intay tidhi ayay istaagtay. Ogow anigu ma ihi ninkaas oo kale, ballanta iyo wacadkana agteeda qaali bay ka yihiin, ee sidaas u ogow. Dharkaaga iyo wixii aad u baahataba diyaarso. Caawa bacda cishe markay aamintu ku beegan tahayna geedkaas iigu imow adigoo aan waxba dhulka ka oolin. Gaadhiga iyo darawalkana xagaafkaa ayaan kaga imanaya ayuu yidhi, isagoo u tilmaamaya jidin dooro jira. Haye sidaas ha inoo ahaato, intay tidhi ayay dhaqaaqday. Markaasuu Faaraxna ka daba tuuray moobilkana wayna ka soo wada hadli insha Allah oo dhaqaaqay. Faarax gurigii iyo meel kale toona ma qaban. Wuxuu u jihaystay dhinacii magaalada. Intuu koob shaah ah kaga dhuftay mid ka mid ah makhaayadihii ugu sokeeyey ayuu dukaan walaalkii lahaa tegey. Wuxuu u sheegay inuu caawa gabadh la ballansan yahay, wixii tabaabushaahna isaga looga baahan yahay. Siciid oo walaalka Faarax ka weynay aad ayuu ugu farxay warbixintaas. Markaasuu isagoo dhaleeceynaya yidhi, war bal ii warran, maanta nin ayaad iska dhigtay, gabadhii hadda meeday? Waa ku sidee walaal, gabadha suuqan keeni lahaa intuu yidhi ayuu ku daray, waxaad keenaysaa isku joog qurux badan oo gabadha igu raacdo iyo kabo. Haddaad ku dari kartidna cadar iyo kareemada dumarka waa loo baahan yahay. Sidoo kale ninkii jaamac ahaa waa la ballamay inaad gaadhiga shidaal ugu shubto, wixii kale ee uu u baahan yahayna sii. Haddana reerkaan raashin u qaadayay, galabta alaabtaas oo diyaara iyo gaadhigaba aan kugu imaado. Markuu hadalkii dhammaystay ayuu Siciid yidhi, war waxba qarashka ha isku badine, ninka gaadhiga wata ayaad la ballantay, galabta raashinka iyo alaabtaada ku qaado, caawana xaggaa iska raaca, wabilaahi tawfiiq. Faarax oo dhoola cadaynaya ayaa yidhi, qoodha iyo xerada sidaasaa habboon. Waayahay walaal. Faarax sidaa ayuu yeelay. Markuu reerkii raashinkii u geeyey kadibna ay casheeyeen ayay u soo dhaqaajiyeen xaggii Canab. Mar ay in yar u soo jiraan ayuu darawalkii gaadhigii nalkiisii damiyey oo bareegii ka qabtay. Kadibna intuu sigaar shitay oo degay Cabdi ku yidhi, war orod gabadha u tag, anigu halkan ayaan idinku sii sugayay, haddii kale shaki baa imanaya. Faaraxna intuu si degdeg ah u soo tallaabsaday ayuu geedkii ballanta isa soo taagay. Canab oo laafiyoonaysa dibna iska eegaysa ayuu humaageeda meel yara durugsan ka arkay. Markaasuu ka hortegay oo ay xaggii gaadhiga u soo taabiceen iyagoo aan wax salaan dhaafsiisnayn soo dhan. Halkaas ayaa laga dhaqaajiyey. Intii muusiga cirka la geeyey, xawaarahana la siyaadiyey. Mar ay salaadiis wax soo dhowdaayay ayay tageen meeshii majrahoodu ahaa. Saacado kadibna Canab aabaheed ayaa lagu soo dhuftay si uu wilaayada gabadha u bixiyo. Xoogaa murana oo aan badnayn kadib waa la isfahmay. Canabna waa la meheriyey. Dumarkii ay ehelka ahaayeen Faarax iyo kuwo deerkiis ka yimi ayaa ciyaar farxadda iyo aroosku sababay aroosay. Goor ay markhankii tahay ayaa Cabdi oo warmooga shaahna iska karsanaya
dareemay jaanqaad xaggiisa u socda. Markuu jalleecayba waa saaxiibkii Xuseen, isagoo la yaaban sababta uu ugu yimi maadaama ay xalay xanaaq ku kala tageen. Ayuu dhinaciisa u soo kacay. Salaan kadib ayaa Xuseen yidhi, allow nin aan waxba ogeyn ha cadaabin, war bal biyo ii dhiib. Cabdi oo dareen galay ayaa yidhi, maxaad ogtahay? Isagoo biyihii soo wada ayaa Xuseen ku soo ganay ereyo sabab u noqday in biyihii ka qabtaan. Qoftii canab ahayd Faarax ayaa la baxay, waana loo nikaaxiyey. Haddana oo adiga maqlaya durbaanka loo tumayo ee ka waran. Anigu mar hore ayaan ku idhi ninkaas waxba ha ku darsan ee ka fogow. Balse maxaad samaysay? Nacasnimadaada ergaad u dirsatayba. Ka xaabxaabidii. Cabdi oo cadho iyo ciil iswani ku habsadeen ayaa si tamar darro ka muuqato meel aan Xuseen ka fogeyn u fadhiistay. Xuseen oo xaalka saaxiibkii dirsay ayaa bilaabay inuu waaniyo. Isagoo dabka ka soo qaadaya shaahi ayuu ku yidhi, Cabdiyow, waxaan rajaynayaa inay dhacdadani cashir kuu noqon doonto. Wax walba way tageen, mana soo noqonayaan. Waad ku qasban tahay inaad canab ilowdo, maxaa yeelay dantaada ayaa ku jirta. Nin dhallinyaro ah baa tahay, raganimo iyo adduunba waad haysataa. Isku day in aadan u liicin waayaha qallafsan ee ku tumaatiyey. Anigu haddaan saaxiibkaa ahay, waxaan kaa ballan qaadayaa in aanan ku cilayn doonin oo aan garabkaaga taagnaanayo. Cabdi oo xoogaa hadalka Xuseen adayg ka qaaday ayaa yidhi, waayahay saaxiib, aad baad u mahadsantahay. Sidoo kale waxaan kaa raaligelinayaa ismaandhaafkii habeen hore ee soo dhex galay. Markaasuu Xuseen dardaarankiisii ku soo go'aansaday, innagu rag saaxiibo ah ayaynu nahay, waxaas iyo wax ka weynba inaynu isugu dulqaadanno waa inagu waajib ee ha u bixin. Xuseen habeenkaas xilli dambe ayuu ka dheelmay saaxiibkii, aroortiina uu ku soo kallahay, wuxuuna u sheegay in maanta uu isagu labada adhiba la jirayo oo uu isagu magaalada iska aado iskana soo nasto. Ciwaanka shanaad, guushii Cabdi. Indhaha Cabdi oo raadka jacaylka, qoomamada iyo ciilku ka muuqdaan ayaa hortayda soo jooga. Markuu sheekadii dhameeyey ayaan gubtay, sidii in aniga sheekadu igu dhacday ayaan cadhooday. Kolkaas ayaan isdejiyey oo anna ugu daray wixii talo iyo tusaale iga gudboonaa ee aan odhan karayay saaxiibkay. Markaannu cabbar sheekaysanay ayaannu soo kala tagnay, anoo kula ballamay inaan berri galab u iman doono. Waxaa aad iga yaabiyey ninkii Faarax ahaa iyo siduu wax yeelay. Habeenkaas ayaan sameeyey hees aan u bixiyey laab wanaag oo aan ku soo bandhigayo dareenka Cabdi anoo isaga metelaya. Lurka iyo dhibaatadu layaab ma aha, ruuxdana loof ay igu xariiqaan wax ka laabanaa abid. Loofkiyo jacaylkuna labka waa u daran yee, naftayda ay hallaasimin leexada cishqiga oo aadmigii lilaahidu laba weeye kala fogay ha u lumin qof awgii. Beydka labaad wuxuu yidhi, gabadhaan la hayn jiray lambarkeeda ruuxan baray baa lugta iigu dhigay lamaanaha. Libaaxii dhawaaqana kaluu ka ladan yee, naftayda ay hallaasimin leexada cishqiga oo aadmigii lilaahidu laba weeye kala fogay ha u lumin qof awgii. Beydka saddexaad, aduu laab wanaagay imaad loogin cadowgoo anaa liilka doonto aaminay laciif guna. Lubbigii iyo naftayduna ducay kugu laadheene, rabbi luxudka iyo duni ku wanaaji labadaba. Anna waan ladnaan oo ilaah baa iloon tiri waayo maayo libintana. Kolkii aanu kulannay Cabdi, heestaana aanu mariyey aad ayuu la dhacay. Waxaana u noqotay dawo iyo baan uu kaga bogsaday dhibtii soo gaadhay. Muddo kadib Cabdi wuu soo kabtay, wuxuuna guursaday gabadh kale oo ilaa hadda oo aan sheekadan qorayo xaaskiisa ah, ubadna ay isleeyihiin. Rabbi ha u barakeeyo qoyskiisa iyo awlaadiisaba. Gunaanad. Cabdi galabtaas marka uu sheekada ii dhameeyey waxaan galay jawi kale. Waxaan ka bartay casharro badan oo aan ku faa'iiday. Saaxiibka wanaagsan iyo kaalinta uu ka qaadan karo horumarka noloshaada ayaa ka mid ahaa casharradan ka bartay. Sidoo kale munaafiqu meel uu joogaba inuu yahay cadow kala geyn kara lamaane, saaxiib iyo xitaa ehelo. Waxaan ka bartay in qorshuhu tiir dhexaad u yahay hawlaha aad qaban doontid oo aan la socon karin la'aantiis. Haddii la isku dayana guuldarro laga dheefayo. Casharka ugu wanaagsani waa in degdegu yahay sababta ugu weyn ee fashil keenta. Hubsiimo hal ayaa la siistaa ayay Soomaalidu tidhaahdaa. Weligaa hadal qof ama cid ay kugu tidhi ha ku go'aan qaadan ilaa aad runta ka soo ogaanaysid. Dhammaad.